odayaal dhaqameedka degmada Raaso oo soo jeediyay suugaan ay ku soo dhaweynayaan wafdiga socdaalkani ku guda jira iyada oo ay dhiseen guri dhaqameedkii Soomaalidu ay caanka ku ahayd ee sooyaalkiisu aadka u dheeraa ayna soor uga dhigeen wafdiga suugaan aad u heer sareysa ummadana dijeeda waxa weeye deegaanka dawla deegaanka Soomaalida Ethiopia way haruya dadaala barashada dunyada dadkay waraabiyaan daweeyaan dalagaya beeraha loo wada dareera intii lagu soo dhaqmayay intii gudihiisa tiilay intii muuqaalka u ahayd guud ahaan waxaan dhex taaganahay waad u jeedaan haddana degmooyinka kalena waa sidoo kale waxaan bartanka u taaganahay degmadii Raaso ee ka tirsaneyd gobolka Afdheer aqalkaana reer Raasaa dhisay madaxweynahana ku soo dhaweeyay aqalow maxaad ahayd maxaa dhaqankaagu ahaa maxay Soomaali kugu soo martay aqalkaa la saysaabay ee la isku wada soohay surad iyo alool suuqid iyo kabad la suureeyay dhigta siman harada saaran iyo udubka loo soogay fandaalada sarsaran koorsad go'an ka raxsiyaabaysan xarga quruxda loo soohay aan iriba sii daynin saab guduuda biyo loo sayaday ee doc lagu suuqay sariir dhaame suubaan kashkaa seexasho udgoon leh dabaan suulin dhaxankaasa saba surin dhadhaar yeeshay mandadaha sabaan loo toshee safarka loo qaato satiyada la saysaabay ee sixid udgoonaysan kumbi solan colobi sidi ku tahay soori garab taal marka saahid kuu soo martiya keen adeer madaxweynaha gacanta u geli saakoogu qabo marka saahid kuu soo martiyay caana lagu siiyo xawsaarka koob loo suray yaa lagu sabaalaa doobkaha ku Soomaalka sugi sidig tilaalays aqalkaa sareedada kabadaaha loo soo rogay iyo alool hoosta lagu seeray aqalkaa sareedada ilaa sabada loo buuxshay sawjadaa dhex joogta iyo sayga garab taagan haddii aan tacliin lagu samayn sabir ma doorsheen suudiga kulayl kama gasheen siiga iyo boor dhaxantaa ku sirin layd oo ku sorilayd aqalkaasaynu ku soo korray oo dhaqankeena iyo hiddaheenna ahaa waxaa nasiib iyo wanaag maanta sheeka xariir muuse oo isirkiya iyo madaxweynihii oo isaguna sidoo kale ah oo isir dhaqan iyo hiddaa aqal Soomaali iyo gabay sifadii aqal Soomaaliga oo dhan ka meehe noociisa kala gabay lagu sifaynayo laftiisa waxa weeyaan waxaan ka helay Raaso degmada Raaso iyo shacabka Raaso aad iyo aad baan u amaanaya waan leeyahay aad iyo aad baan u maasooyin soo dhaweeyay hadda xisbigo waxaan doonayaa halkan inaan kan aan kaga sheego biyihii shalay laga hadlay biyihii hadday ceelka cusub tahay iyo haddii webiga laga soo jiida tahay labadana diyaar waxaan amaanayaa subaankan amaanayaa shalay aad baan u fajacay xalay lafteeda gabayada uu tiriyey ee weli ku jira ee cilmiga ee waxa weeye u baahan in la soo bandhigana aad baan maxaan ku rahay uga helay kuwa waxa weeye deegaanka u sameeyey iyo kuwa si gaara jigo u sameeyey iyo kuwa u sameeyey ee waxa weeyaan markaas dhaqankii iyo waxa weeyaan nidaamkii aan kusoo dhaqmaynay sidaan Soomaalinahay intaba xalay waa dhageystay aad iyo aad aan uga helay in la soo bandhigo oo waxa weeyaan adduunka loo soo bandhigana aad bay u fiican tahay aad iyo aad baa mahadsantahay aad iyo aad micnuu gabaygu kale leeyahay lagu mariimaaye wafdiga mirqaan kale haddaan midhar ka faalloodo madaxweyne macbuudkii allihii soo diraan mahadi gaadhaaye madaxweyne moog baan ku idhi maalin iyo leyle muslimkoo dhan baa wada anfici meelu joogabae mahad baanu kuu celin haddaad maanta noo timide madaxnimadahay oo ha dhigin mawdka ka hore weye midhihii firdowsiye ka dhereg malabki fiicnaaye horumar baan kaa rabnaa way macaan tahaye midigtaada ii dhib jannadan kugu masaalaaye
kadib markii lasoo gabagabeeyey kulankii ballaadhnaa ee laba geesoodka ahaa ee ay wada yeesheen madaxda iyo shacabka ayaa halkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamud Cumar inay Raaso noo noqoto gudaha iyo dadka jaarka cidda ugu fiican ee ku farxay ee magaca iyo sumcada u tahayna horta waa aniga wada idinkeena ka badan ee sheeganay ee ku faani waa aniga iyo xukuumadda hoggaaminaayeey yaa ku faanaysan nabad inay meesha noqoto nabad lagaga soo tooso nabad waxa weeyaan lagu caanamaado cidda ku faanaysa nabadda keena ee dacartii siyaasadeed dacar baa kacsaneed gaaskii dacarta ahaa ee kacsanaa dejisay siyaasad lagu dejiyey in maxaan ku raaya aan samayno aad baan maxaan ku raaya yaa lagu faraxsanahay kale waxaan ku celin oo mar labaad ku celin oo mar saddexaad ku celin ardada iyo dadka dhalinyarada ee Raaso waa inay jaamacadaha ku bataan oo waxbarashada ay ku soo jeedsadaan jaamacadaha Itoobiya waa in laga dhaxarkaa arday fara badan oo halkan aan ku arkay oo dhalinyaro fara badan waxaan ugu dhamaaday hadda in waxbarashada loo soo jeedsado oo waxa weeyaan aan aragno arday fara badan dugsigiisa waa ka ilaa preparatory way koobaad ilaa preparatory halka inuu ku dhamaysto Raaso ku dhamaysto soo meel kale ay yaa qabtaanaga taana in laga faa'iideysto oo waxa weeyaan ardaygu markuu dugsiga 12aad dhamaysto inuu jaamacadu halka ka galo taas ilaahay baa taageeri kara meel laga heli karo ma jirto oo ilaahay taana inta ilaahay ku xamdidaan